muuse waa nin u dhashay dalka Uganda waxa uu leeyahay 10 xaas iyo weliba 98 carruur ah waxa uu sidoo kale uu awow u yahay 568 carruurood kuwaas oo ay dhaleen carruurta isaga markaasi uu dhalay ninkan waxa la yiraahdaa Muuse Xasaaji waa 67 jir daadaas waxaad ugu yeeri lahayd malaha markaad maqasho howlgab laakiin sida ay yiraahdaan daadu waa tiro waqtiyada xasaradaha adduunka qoyska Muuse waxa la oran karaa waa kuwa ugu weyn dalkiisa Uganda iyo malaha guud ahaan gobolka bariga Afrika Muuse waxa uu qabaa 10 xaas waa aabale 98 carruur ah waxa uu sidoo kale uu leeyahay uu awow u yahay 568 tan waxay la macno tahay in mid kasta oo kamid ah xaasaskiisu ay dhashay ugu yaraan 9 carruur ah waxa la rumaysan yahay in uu waqti hore bilaabay guurka isagoo 17 jir ah Muuse waxa uu noloshiisa u hibeeyay carruurtiisa ninkan xaaska badan ayaa hal guri la wadaaga dhammaan xaasaskiisa balse waxa uu carruurtiisa u dhisay guryo kale oo yar oo ku hareeraysan dhismaha ballaaran ee uu leeyahay dhammaan dadkan aad halkan ku aragtaan waa qoyskayga osobola jukira amanya ga bachalabo abachalaba amanya gona kati omayina bo nga sigenze bulungi wanetegereza waliwo besobola kubisinga balala waxaan dhalay 98 carruur ah oo wata 10 dumar ayuu si sharaf leh u yidhi qaar ka mid ah carruurtiisa ma koraan oo kaliya waxaa jira kuwa markaasi guursaday halka qaar ka mid ah carruurtiisuna ay iminka ay waxbarashada ay ku jiraan sheekada la yaab kale ee Muuse ayaa ah in ninkan uu markaasi uu ka dhashay qoys 2 carruur oo kaliya haddana ay ku dadaalayeen sidii ay noloshooda markaasi wax weyn ay uga bedeli lahaayeen inkasta oo uu ku soo barbaaray qalafsanaan iyo dugsigii heerka 6aad Muuse waxa uu ku guulaystay inuu markaasi uu ganacsi u galo hantidiisa ayaana iminka markaasi uu ku raaxaysanaya waxaan noqday qof taajir ah oo qoys kasta oo aan albaabka u soo garaaco oo aan weydiisto gabadh durba waa ay siiyaan iyagoo markaasi shuruud kale aan igu xireen taasina waxaa keentay awoodda lacagta ee aan leeyahay sida waxaa mar kale ku celiyay Muuse oo markaasi saxaafadda la hadlay xaaskiisa ugu yar ee Kakazi ayaa ka yar qaar ka mid ah carruurtiisa isagoo intaa ku daray inuu kala saari karo carruurtiisa laakiin aanu garanayn dhammaantood magacyada ay leeyihiin haddaba daawade sidee ayaad u aragtaa xogtan waxaana suurtagal ahay in weli aad doob tahay fadlan isku diyaar inaad guursato si markaasi ubad oo Ilaahay ku siiyo